madaxweynuhu miisaaniyaddu labada sano inoo ururiyey ee sanadkiiba ahayd 400 milyan haddii lacagtii ay ku faanayaan lacagtii way noo soo wada baxdo cudhaari ma jirtay lacagtii ni qaata baa lana leeyahay sidii ninkii wasiirka shalay sheegayay hadday taasi idinka dhabtay laba sano miisaaniyadoodii baa idinku maqale warshada shamiitada dadka u kiciye dabeedna 2,000 oo qof baa ka shaqaynaya 2,000 oo qof baa shaqo ka helayo shaqo rasmi ah ka helayo lacag ka fiican milyan ka qaadanayo shaqaynay runtii guul darradii ugu darnayd iyo fashilkii ugu darnaana shalay kii baarlamaanka ka dhacayba waxa u dambeeyo la sugayaa waxay ahayd gud inay doorasho xor oo xalaala ay dhacdo qaranka labaynu ku iibinaa dawlad ictiraaf u sii socota baynu waxaynu qarankeena ku iibinaa waxa weeye amniga iyo dimuqraadiyadda madaxweyne muuse waxaad moodaysaa inuu dimuqraadiyaddiina sii baabiinayo amnigiina askaraha dabadaha ka muuqda darkiisa labadaasaynu qaranka ku iibgeynaa labadiiba way liitaan amnigeennina wuu liitaa oo darafiyada amnigoodii waa liitaa mar haddii wax dhacal lama sugayo laakiin mar hadday inagu soo dhiiradeen dad aan qarannimadeenna ogolayn oo amnigeenna ka dagaalamaya mar hadday darafyada ka hadlayaan waxba may dhicin weliba balaaya may dhicin laakiin waa calaamad xun oo inagu taalla qaran baynu nahay horumar u soconaya walaalayaal iyadana aan xusi lahaa madaxweynaha dimuqraadiyaddeenu iibgeynayna dimuqraadiyaddiina madaxweynuhu ku ciyaaraya talaacub bay u muuqataa qarankeenu wuxuu ku socdaa amniga iyo dimuqraadiyaddeenu iibinaya iyo doorasho xor iyo xalaala oo walaalaheen muqdisho aanay ahayn inay Soomaaliland ka dhacdo ay ka qabsanto madaxweyne daahir riyaale ka ahayd 4 doorasho ayuu qabtay isagoo budgetkiisu yahay 49 milyan halka maanta budgetkeenu maray 400 oo bilyan buu maray miisaaniyadin laakiin daahir riyaale waxa 49 milyan buu golaha deegaanka ku qabtay golaha baarlamaanka ku qabtay tii madaxtooyadu qabtay ma hayna maanta 400 oo milyan iyo iska daba wareeg maanta riya raacay bari toolana ali raacay saa dambana ka kala socodsi golaha baarlamaanka asixiyeen waxa uu muuqatay in iyagu dantay u asixiyeen inaanay dan dawladnimada iyo qarannimada aanay u ansixin inay u ansixiyeen iyaga la qabanaya doorashadooda si doorashadoodu ay cumri dherer uga helaan ayay u asixiyeen waxay cumri dherer ka dhiganayaan inta riya raac lagu murmayo intaas cumri dherer ka dhiganayaan aad iyo aad bay taasina guul darro runtii u tahay gabadha baa ku jawaabaya sheekh Sareemaha haddii aan ku jawaabayna waxaan ku sheegayaa adigu markaad madaxweynahaaga caayayso horta dib bay isu fiirsan shalay waxaad ahayd maantana waxaad tahay ma ogaatay markaad hantidii dawladda boobtay iyo hantidii shicibka ee biyo sare u kacaya biyo hoos u kacaya aad ka furatay aad hudheella ka cadaysatay maanta madaxweynaha qaaliga in wax ka sheegto horta waa masi ayaan daro waxaan kuu sheegayaa shalay baa sheekh Saleemaan baktiisay oo ubadkaagii burxo bakti loogu aasay maantana marka shicibkii boobtay ee daragtay inaad madaxweynaha Soomaaliland wax ka sheegto ayay ku garowday madaxweynuhu sharaf buu mudan yahay waa Muuse Biixi Cabdi dadkiisiba wax ka dhigay waa madaxweynaha sharafta la qiimaha leh qiimeeye qaatoona marihid war adigu dib isu aad baan kuuri oo madaxweynaha waxba ka sheegin war nin kale bari muxuu oran doona markaad wax ka sheegtay madaxweynahaaga war meel khasilayn war meel isla yaabaynin war meel hareerahaaga eegaynin wax isku ma falow wax dhintay baa tahay ana runta ku sheegay anigoo naaga hoy ana ku jawaabay daqonow nacaso wala ku jawaabay waan salaamayaa madaxweynaha sharafta leh Muuse Biixi Cabdi waan salaamayaa madaxweyne xaal baan ku siiyay
madaxweyne xaal baan ku siiyey mar labaad iyo mar saddexaad baan madaxweynaha la sharaf kale xaal anigoo gabadha baan kaa siiyey sheekh saleebaan oo uraaya oo dhinta ah wadaadna wuu isku sheegaya hantidii dadweynahana wuu boobay sharciga waafaji sharciga wax ka qabo wax sharciga waafaji wase